halkan waxaan ku duubayaa maanse yaroo gaaban oo aan aad u dheerayn maansadaasi waxay ka hadlaysaa in dhibaatada maanta haysato ummadii Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto marka la raadinayo dhibaatadaasi waxa ay tahay in qolba meel qaado nimo meel la carru yiraahdo midi waa qabyaalad midi wuxuu yiraahdo wax weey maamul xumo midi wuxuu yiraahdo dhinacantu la booday waa jahli umada haya mid kale uu yiraahdo waxa weeye musuqmaasuq iyo arrimo noocaasa mid kale uu yiraahdo waa dawladda shayafraa igula jira waxa soo dhamay dhibaatooyin jira weeye waa xaqiiqo jira balse laakiin su'aasha isweydiinta la seegay dad badan seegeen waxa kamid ah halkeebuu la problemkan xaqiiqa xagu ka yimid maxaa sal ah ilaa waxa weeye waxa jira waxa yiraahdo cause and effect hadda baleeg waa wax meesha waxa jira waxa arrimahani meel ay sal ku leeyihiin oo ay ka soo bilaabmeen ama waxaan oo dhan sababaya baa jira waxa sababaya waa maxay anigu waxaan qabaa fikrad ahaan dad kale kula daan la qabaa in dhibaatadu ay ka asalkeedu uu ka soo jeedo dhaqankeena meelaha khariban dhaqankeena dhamma wada xume meelaha khariban ee dhaqankeena ku jira ee waliba meelaha soo ameela ka soo horjeeda diintii ilaahay maxaa ka soo horjeeda ayaa sal u ah oo asaas u ah dhibaatooyinkan maanta in haysta haddaan meesha la daweynin oo kuwa la bedelina dee dhibaatadani ma dhamaanayso ma tagayso marka buuggan ku sharaxo maalin dhow soo bixi doono balse laakiin waxaan guud marayaa oo aan qodob u soo qaadanaya bal dhibaatooyinkaasi waxa ay yihiin waxaana ku bilaabmaysaa oraahda Soomaaliyeed tirada geelow soco oo maalintaad ciin daaqdaa lagu yaabaa Soomaaliyay socotay oo dulmi iyo tacaddi iyo dib u dhac iyo burbur iyo qabyaalad iyo waxa doonto wadaye maalintaad ilaahay faraha la gashay rabbul caalamiin ki dunida lahaa maalintaad la gashay sharcigiisii iyo nidaamkiisii ka soo horjeysatay ee aad diiday ee aad la dagaalantay maalintaas ayaa wala iyo bilay talaad ciin daaqday marka taasoo ku bilaabmaysaa geelo soco maalintaad ciin daaqdaa lagu yaabaa marka qodob baan u gali doonaa insha Allah waxay ku bilaabantay markuu gurgurshaagu gamboortiyo ciinka caleenta ka goosto ayuu gadmadaaye gadiis ma ahaatay gashaanti islaama guddoonsho wadaada markaad gun ku sheegtay markaad isma geyno go'aanka ku gaadhay guurkooda mamnuucday xaqu rabigooye rasuulku guddoomay miyaanad garifin inan muslimada iyo inan muslim ah oo walaalkaayo halkaa jooga masaajidka kugula jiro inan masaajidka kugula jirta markaad tiri guurkaagii waa xaaraan rabbul caalamiin kiro oo ku sheego ku yiri waa xalaal oo ana xalaalayo waa qof muslim ah ee adiguna inta soo istaagtay oday koofiyad bacla ah odayaashan aynu saadiinta iyo maraaqa iyo aynu ku sheegno in boqorka iyo garaadka iyo waxa lagu sheegaa waa nimanka umada baabiyay maca ka reer ku doortay ku dayo dhamaantood waa isku mid nimankaasi waa nimanka ilaahay sharcigu soo dajiyay yiri waa qofka muslimka ahi waa xalaal buu ku ilaahay guurkiisu markaasa inta adeegaaga iyo asraarkaaga iyo jahli meesha ka gaadhay ayaa waxa tiri maya waa xaraan qof ilaahay ka soo horjeestay sharcigiisii waa miyaanu jaahil ahay waa gaalnimada maxaa uga dhiman Soomaaliyeed runta aynu soo sheegnay marka waxa halkan ay gashaanti islaama guddoonsho wadaada markaad gun ku sheegtay markaad isma geyno go'aanka ku gaadhay guurkooda mamnuucday xaqu rabigooye rasuulku guddoomay miyaad garifin gawooye maalinta ku jiray guurkiinu waa xaaraan miyaad ilaahay diintiisa ka leexan miyaad ilaahay ka soo horjeesan nimankaas aynu daba soconay raacayna inuu leeyahay niman dadkaas ayna hogaaminaya Soomaaliya ilaahay baa ku dhaashay qodobka labaad ninkii ku raacawdhan markuu dila geedi garaad yaridaada guhaad ugu aarto ee gowrac marsiiso qof aan dabigaysan xaqu rabigooye rasuulku guddooshay miyaad garifin markuu nin dilo aad u disho ninaan shaqaba ku lahayn oo adeerkii iyo aabihii iyo walaalkii markaad u disho miyaad ka soo horjeesanin aayadii dhamayda ilaahay ee ilaahay ku yiri nafna naf kale dambigeeda ma qaado halka waa marka kula ay ninkii ku raacawdhan markuu dila geedi guracawdhan la yiraahdo wuxuu dilay geedi kow garaad yaridaada guhaad ugu aarto guracawdhan geedi buu dilay adigu maxaad guhaad ku dishay guhaad oo halkaa jooga oo reerkiisa yar iska wata oo dukaan yar iska leh oo ama meel yar ka shaqeysta oo ogeyn oo waxa laga yaabaa guracan masaa'ib taahiba uu yahay mid reerku maca walaalkii nacay oo inkaara markuu mid dilo ninka halkaa jooga waxba sameeynin
إلهي كويل نفنا هاو قبلنا نف كله إلهي مياد كسر هرشي سنين دين تيسي آيات دا ميانت بيرنين آيات دا إلهي ميانت بيرنين نكسر على يضو قبتي حبلهن أذو قنت قاون كوي كقدار شيء مركات قد جود با أنت قبل صارتي قلاف كتل معنتي حق ربي جوي رسولك قدومي مياد قريفن حبله صوماليات أديكو قنت قاون أمضت يبنى آدم يحول منا هين كقدار شيء أفكار كبري كوري دبرك كوكسري مركز هو يلا كتير عقلي كوكمتشرو كتير كعلى قلنا كسب قلاه إلى هنا وكيلو بني آدم ما شرفه أوان كلامي يبوك إلى هاي مركز صدق نتيجة كعلى قلنا كسب قلاه دبرك وانا لا هذوين آيات إلهي مية كسر شيء سنين آيات إلهي كل أي ولا قد كرمنا بنا إلهي مركز كل بني آدم كوانو كرامنا أو أنو كرامنا عقلي أظن ينظر أن العقل مره طلبات عدة كلها عقل مره عاشم يعني كتير حاس كنا بجميع كحشون ويد حاس عشان نقولنا هي أنت حديثه يروسو قد بيسي إلا إن ما هذا بس واحد حيصتها ويكون دقنت هاي وضم رضن صومالي ما درن كل على قلنا باتل هو يسوق لي سيدنا حاس كنا بجميع كحشون ويد قبتي حبلهن أذو قند قاون كوي كقدار شيء مركات قد جود با أنت قبل صارتي قلاف كتل معنتي حق ربي جوي رسولك قدومي مياد قريفن بل صدق هذا قضبه في الصلاة ويسعطها ننكي قبر صوبان قبوض فالبريرة قنتال كوهالقادة مركات قرب سيسو مركات قرباس كقباد وقوهيسو حق ربي جوي رسولك قدومي مياد قريفن ننبا قبر كفصلية markuu gabadhii kufsaday diintu maxay noo sheegtay de sharci baa yaala culimada ay ta ka hadasha ninka in la dilo de way in la gooyo ciqaabada dilbay ayaaba la gaaray la dilo ninkii noocaas ahaa ee inanta intuu dilay nabar la dhacay kufsaday wuxuu doona ku sameeyay ninka intuu la baxsado oo uu la cararo hadhowtana inantii odhanaya loo guuriyo miyaanad ka hor imanin xukunkii sharciyada diintii ilaahay miyaanad ka hor iman waad ka hortimi ninkii wax gumaada gowraariya muumin qudhiisana gooya markaad u gargaarto gaashaanka qabiilka gabbood uga yeesho xaqu rabbi gooye rasuulku guddoosho miyaad garifin qofku qof markuu dilo soo ma aha reerkii laga dilay inta loo geeyo in la yidhaahdo saddexdii shareecadu jinsiisi ah in laydin qisaaso ina saamaxtaan iyana magta qaadataan xaashaa kalla waad la baxsanaysaa waanu islaqaanaa qurbaha la baxsataa waa lala baxsanayaa meel baa la geenayaa reerkii baa lugmaanto dhan sidii shimbilbarabta sainta loogu wareego ayaa odhaya ma qaata taasina miyaanay ka soo horjeedin xukunkii shareecada ee ilaahay dejiyey ee ilaahay ku yidhi saddexda reerka u ogolow bal haddaba fiirso qodobkaas soo shareecadana maa jabinin ninkii wax gumaada gowraariya muumin qudhiisana gooya markaad u gargaarto gaashaanka qabiilka gabbood uga yeesho xaquu rabbi gooye rasuulku guddoomay miyaanad garifin ninkii garwadeena xatooyada gooba gamcaana ka buuxsha markaad u golayso gablay shimbir baana geeraar ku ammaanto xaquu rabbi gooye rasuulku guddooshay miyaanad garifin ninka xoolaha ummadda boobaya ee xoolihii ummadda boobay ee marka horena odayaashii naasiyo dadkii nasiinta tuurta saartan qabyaalada iyo fowdo kusoo kaxaysaan iyo waa in adeerkay marka meesha geysaan xoolaha boobay laysan la xisaabtamana u dagaalamaya marka hadhowto uu soo boobo ummadana waxaaba lagu yidhaahdaa maxaad soo qabsatay inta dawladda haysatay hadda waa xoolihii ummadda ee diintu bartay ka taagantay aynu aragnay ee la isku dilay gacantii qorta la isku jiro haddii xoolaha loo dhawaado dee la saar tuug baa tahay xoolihii ummadda boobtay ninka intaynu u yeedhno ayaa markuu qurba yimaadana eerbordhada lagaga hortagaya markaasaa sacab loo tumaya markaasaa soo dhawow nin kastoo tuuga eerbordhada lagu soo dhaweeya markuu yimaadana sooriya gacanta laga saara waxaa soo dhaweynayana waa qabiilkiisii diintii ilaahay miyaad ka soo horjeesan sharcigu ilaahay dhigay miyaad ka soo horjeesanin markaa ninkii garwadeena xatooyada gooba gamcaana ka buuxshaa markaad u golayso gablay shimbir baana geeraad ku ammaanto xaqu rabbi gooye rasuulku guddoomay miyaanad garifin bal intaasiiba dhaafin maaye bal intaasoo qodoboo keliyaan soo qaaday ee diintii ilaahay caddaysay aynu ka hornimi رب العالمين كدولنا الحين كهر نمي بولشوي مركا تا كهر تمعدو ومحي هور مركا يلا ولا بيا واحد ربطه مركا بولشدي بان لها ضياع إن تقد دوهن كرواق سندي دي جحيمة قد كذا أسي قلبانيسا قداشا كرعدو إن تسقلاشو كجيك تحمانتا واد قبيو حق موانكا كل عفتو أيات قلد إيه به كو قاري وناك
inaad ka leexato odayaashaas aad diiddo aymaad wallahi wanaaga ku gaaraysaa waxaa godob raagtay bulshada ku gadaaman galiliyada maanta halkaad uga guuri go-aanka adaa leh